الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى توفكون. ويقول الله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صدق الله العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميسة، إن أعطي رضي وإن لم يعطي سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله الحمد لله، إلهي جل وعلا ilaahay baa isu keenay amar aada iyo aada u weyn oo u baahan inaynu ilaahay jalla wacalaa ugu mahadnaqno. ilaahay jalla wacalaa isugu keenay waa ixyaa juhdi nabiy sala allahu calayhi wasalam, sidaan usoo nooleyn lahayn dadaalkii nabigeena calayhi salaatu wassalaam. dareenkaas ayaa isu keenay. marka ilaahay subxaanahu wa tacaala huwa almuncim, muncimka dhabta ah waa isaga ilaahay jalla wacalaa. maanta culimmadu waxay leeyihiin carafna nacma wa nasiina almuncim. maanta nicmadii baynu haynaa, laakiin muncimkii baa la ilaabay. man ilmuncim? yaa muncim ah huwa allah. waxa aan arkayno ilaahay baa ina siiyey jalla wacalaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo inala khidaabaya ama inala hadlayuu leeyahay: yaa ayuha nnaasu udkuruu nicmata allahi calaykum hal min khaaliqin gayru allahi yarzuqukum min alsamaa'i waalard laa ilaaha ilaa hu fa annaa tuufakuun. wardadow, xusa nicmada ilaahay oo korkeenna ahaatay. walaalayaal, daahiran wa baatinan, nicmo sare iyo nicmo hoose intaba waynu haynaa, ma koobi karno. aqlaa nicma caawa waa nicmat addiin, waa nicmada dadaalka diinta aan isugu nimid. ilaahay jalla wacalaa nicmada weyn ee qaaliga ah ayuu rabbulciza subxaanahu wa tacaala ina siiyey. xusa nicamka ilaahay korkeena ahaaday in markaa aynu mar walba ka sheekeynaa loo baahan yahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmooyinku inugu galladaystay
وأي أنتهى نعمة الإسلام والإيمان إسلام نمضي إيمانك وكفى بها من نعمة إذا النعمة نوغفلنا دان إلهي وحكى لينسين إسلام نمضي إيمانك رب العزة ونسيي أي وحول بك قالسا نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام مركا لقى هضيوه إنسانية وحال هذا وحوها أفقر إنسان في العالم قفك دتك وفقير سنبوها ظاهرك حال هذا نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام لبشيبه ملكي بركن يا جلاس وبيها كعبه maalin maalmaha kamida markuu arkay qof gacantiisa barkan ayuu yiri tani waa ziyaado barkintiina waa sadaqayst galaaskiina markuu arkay qof wabiga qarkiisa biyo ka cabayo gacmihiisa isticmaalaya ayuu isageena sadaqeeyay waxa la yiraahdaa habeenada kamida nabi ciise calayhi salaatu wasalaam oo dhaxantu ay aad u darnayd ayuu god galay god bahal buu galay dhaxantii markuu adkeysan waayay bahalkii waa saq dhaxay mid markaasuu ku yeero godkayga iga soo bax nabi ciise markuu banaanku u soo baxay buu ilaahay oo adoomadaada oo dhan caawa ma waa meelay degaan bay heleen ilaa adoonkaaga ciise ibn maryam laakiin ilaahay jalla wa ala markuu ka hadlay hadana wuxuu leeyahay walaalayaal daahirka إن هو إلا عبد أنعمنا عليه نبي عيسى ما أوصن أهين إلا وحوها أدون أن نكركي سنعميني مركا نعمذا للدنيا إنا نقيحنو نعمذو مدقحية بضنبا موراق بضنبا مبرب بضنبا أغلى نعمة إله جل وعلا أدون كسداء أي إلهي وحولي هاي wuxuu ahaaday adoon aanu korkiisa nicmayno u nicmaynay lidalika marka ilaahay subxaanahu wa tacaala walaalayaal inaan qeexnaa loo baahan yahay nicmada dhabta ah haddaanu ilaahay jalla wacalaa waxba ku siin waa aqlaa nicma waa iimaanka iyo islaamnimadu haddii ilaahay juhdiga nabiga sala allahu calayhi wasalam ku siiyey إلهي وقلت شيكت صحابة واذكروا نعمة الله عليكم حصن نعمة إلهي وكركين هاتي حالة هي كجرين صحابة إلهي سبحانه وتعالى مركو كهالله سيدي أهايين يولول بهار زمن كما كاي جوغين إله وحله واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره والحصة نعمة إلهي وكركينا أهاتي وحاد كبقى نيسان إن قبقينا والله إذن كلا الضفوه وددكو إذن كلا قاتانو لكن إلهي جل وعلا ما أوابو إذن سيه مدينة المنورة مركي أي ماذين مركز إلهي جل وعلا هدنا وحوير فآواكم وأيدكم بنصره قرقار كيسينا إلهي كركي النصار ظاهر كهدل وصحابته واحد ظاهر رنتي كمي موقن لكن قيحدة نبت إلهي سبحانه وتعالى وسي ولا الأغلى نعمة إلهي وحوسي أكبر سبب استفاد من قدرة الله صببتي أقوقي ما بدنيد قدرة إلهي جل وعلا لوقف فائدة سنة ومضوا هنا أرنتها فهمته وأرنتها درينته أي اللوبة هي شيخ سعيد خان شيخ اللي هذا الله نحرس قبرك سنة الله نوريو odayaashii dacwada ka soo shaqeeyay ma sha Allah waliba ninkii mujaddidka ahaa ee Sheekh Ilyas ragii wax la waday buu kamid ahaa ijtimaaca Karachi markii la isugu yimid ayuu wuxuu yiri haddii ummaddu ay qasad ka dhigtaan maqsadkii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ummadani qasadkoodu noqdo qasadkii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo nicmadan ummaddu ay dareento إن إلهي وحوين إلهي سيي
وصلاحيات كودا إيه وقت كودا إيه فكر كودا إيه عذكر نمدودا إيه تقالهودا انتبه أي قليان قصد كان وحيابها إلهي سينا وحقوه الرئية ونصرة الله ومعية الله ونصرة إلهي قرقارك إلهي إيه إلهي أمد معوذ النقضة لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام markii la diray fircoon loo diray yiri ilaahay waxaan ka baqanaynaa isaga ee Haaruun ninkaas waa nin dhib badan inuu nagu xadgudbo oo nagu durduriyo ilaahay baa ku yiri la takhaafa innani ma'akuma asma'u wa ara ha ka baqanina aniga miciina ah maxaa dhacay waxaad wadataan waa akbar sabab istafaada min qudrati Allah akbar sabab istafaada min ma'iyati Allah sababtii ugu qiimaha badnayd qofku uu uga faa'iideysto qudradda Ilaahay una ku helo Ilaahay maciyadiisa Fircoon hal mar waa awoodi waayay Nabi Muuse alayhi salaatu wasalaam awooddaas iyo ciidamada iyo waxa uu haysto oo dhan hal mar walaalayaal waad arkaysaan ilaa noloshiisa markii ugu dambeysay hal mar inuu ku xadgudbo إلهي حقي سالجا إلهي إلهي ببلن قادو وحير لا تخافا إن شورنك إلهي بات كجرتا لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى لذلك أمده مرك قصة كين ونقض قصة كين النبي عليه الصلاة والسلام وأمده قصة كيد ودين نقضه أمده قصة كيد الدلال دينيد ونقضه ومدوا الصلاحيات كودا يوقت كودا يفكر كودا دين تا يفكران محا إيمانا يوحوه الرئي رب العزة وبلن قاضي ونصرة ومعية إنه إلهي أقرقاره وإلهي معوذ النقض القرآن كما يلبضا إلهي نصرق وبلن قاضي ما يلبضا وحان أركينا ودذلك الدين تا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز وقرقارني كوا نوقرقاره لذلك السيدة لأجل قد ولا ليال وحا أقوقي مهبضا شيخ وحوير حدي ومدو أي قصة كوذا كردقان مقصد النبي عليه الصلاة والسلام إلهي شنتا شيء أي هرت إلهي أسيني وحا الرئية ونصرة الله ومعية الله إلهي إن أقرقاره معوذنا نقضه شيء قال بعد إلهي أوصينا إلهي نلشوا ذو بركينا وحيربا إلهي أبركينا عمر قال الله بركينا وقت قال الله بركينا فكر قال الله بركينا وحول با يا إلهي أبركينا بلن با إلهي كقاد ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون إلهي بلن بوقاد حديدتك إيمان يا الله كعبس لقاهلو جهدنا وجهد الإيمان وجهدك إيمانك كين لها إيمانك دليل لها دتك أمدو أي صلاحيات كودو كسر نقل لها إلهي بلن بوقاد بركة عرك يتدلك اللبضب إلهي إنو فريو أرنت الصدحات إلهي جل وعلا وبلن قاضي شيخ بيانكي سئنا صوكوبو هذا الله شنطة هذين وجودها سيقلنا كده مان منه أرنت الصدحات ومن الذلة إلى العزة ومد مركي قصة كوذا بدلان ومد قصة كوذا أي بدل ومد قصة كوذا بدشوه إلهي يدل لنا مذو كسارة يا أعزاب وكرقية عزة عن عشيرة أباهنين قرقارة عن أهب أباهنين نلل ونكسر المادة أباهنين انتبه إلهي سبحانه وتعالى وصيني ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين عزة إلهي بأسكاله رسول كيسا اسكاله مؤمنين تا اسكاله عزة عن وح عشيرة أباهنين بلا العزة إلهي أسيي ما أهين رضي الله عنه وأرضاه إنه عشيرة مكة كلها ما أنت النبي صلى الله عليه وسلم ومكة صوق لي
nebigu yiraahdo bilaalow fuul oo halkaa kacbada dusheeda ka adin quraysh oo dhan baa meesha taagnayd raggii nasabka ahaa ee magaca lahaa laakiin ilaahay muxuu ku cizeeyey ilaahay cizi aan cashiiro u baahnayn buu ilaahay siiyey gargaar aan hub u baahnayn baa ilaahay siiyey nolol wanaagsan oo aan maado u baahnayn baa ilaahay siiyey marka ummadda ilaahay subxaanahu wa tacaala man araada alcizata falyudci alcasiiz qofka cizi markuu doono waa inuu casiiska adeeca ummaddu meesha maanta ay marayso inagoo dhan waynu ognahay shalay ummaddu halkee taagnayd maantana ummaddu halkee bay maraysaa cumar binu khadaab markuu leeyahay kunnaa qowman adillaa fa acazana allahu bilislaam dad waxaanu ahayn dulliyaal ah laakiin ilaahay islaamku nagu ciziyey haddaanu cizi ka raadino meelaan isaga hayna ilaahay waana dullaynaya arrinta afraad ee ilaahay jalla wacalaa ummadda uu siinayo markay qasadka ummaddu ay beddesho oo maqsadkooda ay beddesho waxaa weeye ilaahay wuxuu ka dhigayaa mustajaabu dacwa ducadooda aqbal noqonaysa maanta ummadda aan isweydiino ducadeena maanta aqbal ma tahay yaa nin walba waa ogyahay waxaa la yidhi diyaaradaha raashiyanku markay bamgareynayeen magaalada xalab ee sunniyiintu ay degan yihiin xaramka waxaa joogay 3 milyan oo qof baa joogay habeenkaa sheekhuna uu ku duceynaya allahuma aciz alislaam walmuslimiin waadilla shirka walmushrikiin laakiin wax dhaqaaqi ma jiraan waxaa isweydiin leh markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadda inuu u gargaaro horta ummadda qasadkooda waa inuu isbedelaa ducadooda in la aqbalo ummadda qasadkooda waa inuu isbedelaa qasadka aan leenahay ummaddu qasad bay leedahay qasadku muxuu yahay innaga hadda maxaa inoo qasad ah ninkii taajirka ahaa waa tegay kii ribada cunayay waa soo cumraystay ama waa soo xajiyay meeshiisibuu ka bilaabay kii xaqdarrada ku jiray waa baxay meeshiisibuu ka bilaabay wuxuu samayn jiray ilaahay subxaanahu wa tacaala diinta halgankeedii maanta muxuu noqday waa nasiyan mansiyan anigu dhakhtar baanahay anigu injineer baanahay anigu taajir baanahay anigu suldaan baanahay anigu kaaba qabiil baanahay nin walba wax kaluu ku faanaya iyagu qasadkoodu muxuu ahaa waxay ku faanayeen walaalayaal dadaal diineed bay ku faanayeen ninkan baycatu ridwaan buu ka qayb galay ninkan waa badari ninkan uxud buu ka qayb galay ninkan waa sidaa waxay ku faanayeen qasad bay lahaayeen man carafa maa qasad haana calayhi maa wajad qasadkooda qasadkay ka midaysnaayeen falidaalika sidaa la ajligeed ummadda marka qasadkeena uu isbedelo umuna caaisha radia allahu canha waxay leedahay nabigaa gurigayga soo galay calayhi salaatu wassalaam nebi maxamedna lama hadlin mimbarkuu fuulay faxamida allaha wa ahnaa calayh isagoo aada u murugaysan oo na salaamin oo mimbarka noo dhaafay ilaahay buu ammaanay waana u mahadnaqay markaa kadib buu dadkii wuxuu ku yidhi wardadow ilaahay wuxuu idin leeyahay warmuruu bilmacruuf wanahuu cani ilmunkar wanaagga faro xumaanta reebo war diinta ka shaqeeya qabla an tadcuu falaa ujiiba lakum inta aysan gaarin waqti aada i baryi doontaan ducadeena la aqbalay allah jalla wacalaa baa leh intaysan gaarin waqti aada xaajaadkeena i weydiisan doontaan oonan idiin quminayn inta aysan gaarin waqti aada gargaar iga dalbaysaan cadowgu intuu meel walba idinku gumaado oonan idiin gargaarin famaa zaada calayhina xataa nazal saddexdaa kelmadood nebigu waxba kuma darin bay tiri hadalkaa ilaaha jalla wacalaa ilaahay wuxuu idin leeyahay buu yidhi war diinta ka shaqeeya wanaagga isfaro xumaanta reeba oo diinta qasad ka dhigta sharaftiina ummadda sharaftooda waa diin iyo dadaal diineed haddii arrintaa la idinka waayo maxaa imaanaya waxay ahaanaysaa
وقت أذي بري دونتان دعذينا أنا نقبل حاجات كينا أذي ويدي سنة إنسان أنا إذن قميو أنا إذن قمينا إنه إذن سينين وقت أتقرقاري قد البيسان عدو قمالو البنتو إذن كوكو ماضو أنا إذن قرقاري فما زاد عليهن حتى نزل وحكى لكم الدرم بيتر انت منبركو كسودك عليه الصلاة والسلام وبيان دم ومد ساك ما انت مركين ولا لا القصة كديقا ويني الدون كديقا ورقيسا وديقا قفك مسلم كا إنه وين أقنها ما انت حالها الدون كماشو مريو ومد محا كل عاي مركي قمة شلي تاقنيد قمة ماشو أقصر رئيسة ما انت ومد حقيبي تالا وحكى لماها ومد قصة كودي بكتكت ومد مقصد كودي يوحي إلهي شلي قيمها يقول عاين أرنت الشناد شيخ وحير هدي أي قصة كينو ونقضوه مقصد كين النبي عليه الصلاة والسلام والدين يدلال دينيد نقضوه أرنت الشناد جل وعلا إلهي نصينا يوه والمحبة في قلوب الخلق إلهي خلقك قلوب تودا أي إلهي إني كالقعيل إنه قلني وحول بإلهي باكو شعلانا يا جبريل بوير يا هبل شعلو بولي يا جبريل دواغ بو لا دواغ يا وحول يا ملائكته ودن إلهي با هبل شعلاذا مركا سيوضع له القبول في الأرض دولك مركا وحالو دغيا إن ددك قلوب تودا محبة لو قليو إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا dadka iimaanka iyo acmaasha iska leh ilaahay qulubta adoomada maxabbo u galiya kalgacayl lidaalika sida la ajligeed walaalayaal qasadka inaynu baarnaa marka loo baahan yahay qasad muxuu yahay culimadu markay ka sheekeynayaan mathal nimankan eeshiyaanka mathal bay dadka wax ku fahamsiiyaan waxay yidhahdeen nin boqor ah ayaa jiri jiray ninka boqorka ah nin wasiiru lahaa maalin maalmaha ka mid oo ninkii wasiirka u yeeray markaasuu ku yeeray nin muddo dheer qasadka qofka qasadka maqsadka waxa la yiraahdo culimadu markay dadka fahamsiinayaan waxay tusaalooyin badan bay keenaan waa laga yaabaa hadda caawa inaynu niraano war qasad waa maxay maqsad waa maxay ujeedda waa ilaa sheekhi halkan soo fariista buu wuxuuna leeyahay مقصد أنه كدينا مقصد كالنبي عليه الصلاة والسلام مركا بقركا نين وزير لها وزير كا بمالن وياري وحيرني يوم مدردر بعد وزارة كشقيني شيء ما أنت صدح سؤالات بنكويدين يا هدي صدح ذا سؤالات أتكجوابتد وزارة هذيك يا وزير كان نقولنا يا هديك لا تنوى تسكتجيسه مركا كم انتبهوا النحيا بالليل نكا وزيرك هذا الكا عاد عي وحقوقها نكا وزيرك باهديسا باهدا قرقيسا باهدا أولاديسا أردن ماشا وكسو صاري ووزارة داعيضا سوى آذن نحسن بير سؤالهم محيهين مركزو حوير أحق الحق هي أفضل الباطل هي أغلى شيء عند الإنسان حق هدو جرى شيء أو حق سن باطل هدو جرى شيء أو باطل سن هي بني آدم كأكتيس شيء أو قال سن صدح ذا سؤال إن كان سؤالها ولي اسمه مقلن مركز سكوير بالبعض هي ستا سؤالها الضون حتى تسوه الشد وزارة هذا وزير كان نقولنا هذيك لو اسكت جيس وحالي الطبن مع الموضوع مركز كده منايد مددي اللي قبتي أيام نبير لي سوى ميل هندتكو أي فريستان يكون نستان فردية أيام نبير لي صومر مركز سوري وريه هبل سوى وزير كيمتي لا وني وضع تودي محاكو ولا مركز سوري والله دي وزارة دي بالله سكويستا فكر إيه مروق إيه ولول مددي اللي إيه قبتينا طبعا عشابة كدمن سؤال اللي يقول كسو جواب سؤالها دانا كجوابين و مركز سو كويري سؤالهم حيهن وحير هذا بيرلي باتهاي حوشنا مجلي كرتيدا اسكسعو ورمي انهم كعاوية لغايا باشيك مركز سوير أحق الحق ومحي حق هدو جرى شيء وهو حق صن
وجيريدو يري محاد عقالي مسلم وحي آمن سين جيريدو إني حقتها سوما أفضل الباطل نوام حيبو يري باطل هدو جرى شيء وباطل سنواء الدنيا يري فلا تغرنكم الحياة الدنيا معناها نلوش الدنيا دو إذن ذكرن أغلى شيء عند الإنسان شيء بوير شيء بن آدم كأكتيس وقوق آلسا مركز سويري تنها تاهد دوني سؤاش الصدحات وأنا صور رعضة مركز سويري أنا وزيرة ميان أدوغو بيريلي وكنت بقى لو حوير ها هدا دوني سؤاش الصدحات إن لقاقي جوابه وأنا دبقى سا marka ninkii wasiirka ahaa isaga hoos isugu dhigo isla hadlay markaas uu yiri hal maalin oo aad nin beeraley daba gashid oo wasaaradaada ay badbaado la baas buu yiri alla ilaahay iska daba gal markii beerihii la tagay ayuu bahashii wax lagu falayay gudintii uu ku soo tuuray wuxuu yiri shaqada wax ka qabo beerta aadna wax ka fal markaas uu yiri inaan wasiir hayso ma ogid خير بأوجه إن وزيرته لكن هدد دوني سؤالش صدحات إن لقاقة جوابه وإن بيرت فشا أدب مركا أوجع عروضي وحير إنه بن هذا المتهد وهذا صوك حيسي وكسور راعي ماشي أنفدي من كان صور راعي هدنا بير بعد وقف ليسا مركا وحير ماشي نسقب قبس مجري هدد دوني سؤالش صدحات إن لقاقة جوابه بيرت فل هديك لتين عرض كتب ninkii markaa isaga mar labaad isla hadlay wuxuu yiri hal maalin aad beer fashid oo wasaaradaadu ay badbaado isaga markuu hoos isugu dhigay isaga isla hadlay la baas buu yiri dib male gudintii buu qaatay beertii wax ka falay hadhow markii la gaaray waqtigii raashinka la cunayay shaqaalaha oo dadkii miisaskii meeshii wax lagu cunayay fadhiisteen ayuu isaga gacanta soo qabtay wuxuu yiri nakeen marka ninkan wuxuu yiri adigu wasiir baa tahay meel gooni ah VIP meel macnaha ya adiga ikraam khaas ah lagu sameeyay markaas uu ku yiri maanta adiga eeyga wada qadeynay ninkii marka aad buu carooday wuxuu yiri waxaanad ku hadlaysaa waa maxay halkaas adiga soo kaxaysa hadana beer baad ugu fashay hadana waxaad leedahay eey la qaday هذا دوني سؤالش صدحات إن لقاقة جواب وأنا أذكي إيقو ما أنتو قديسان لكن مركا آد بو عروضي مكدب وحوير وريا دقيشو ماشان عرب متالوير هذا دوني سؤالش صدحات إن لقاقة جوابه إيقا لقدي هديك لتورس كتاكس قبس ماشي مجري مركا مرس صدحات بو يسوقو هوس السوق لقاقة وحويري هل مالن أود أي لقديشت أو وزارة دادو أي باقي النقطة وزير نمذا أي باقي النقطة لا بأس بوش أيجي ننكي وزير كامركي لفتي إسلاق بصدين أيها الدموع حير خلاص أغلى شيء عند الإنسان ومقصده إنسان كأكتيس وحا أقوى لسان ومقصد كيس وأجدديس هذا كأمل فهم ولا لا بني آدم كسيء أجدديس أقاره لأن زمانه لو عدت لدنت هذا المقار إيبا الله وزع على زمان سيء منك قصد كيس أقاره مركا ماشا وحان سويدين إنك ما أنت محا إنه مقصد إيجانا محا مقصد واحد إيجا الدين يدلال دينيت بمقصد واحد نفتو ذي أهرين دينتا نقالوه ذي بأهرين عرورتو ذي بوأقوميين دمركو ذي أي أقروبيين لأجل الدين مركي لهايين نحن رسول الله وفي سبيل الله إنك ما أنت ولا لين إله بأن كل شيء محا إنو قصد الدنيا إنو قصد صومان maxaan isku jeclaana waa adduunyo maxaynu isku nacnaa waa adduunyo maxaa lagu kala dhimanayaa waa adduunyo badda Liibiya markii la tagay ninbaa iga sheekeynay wuxuu yiri badda markii la tagay ayaa bahal yaro bahalahan la buufiyaa
la fuulay Soomaali badan marka nin baa hadlay wuxuu yiri wareerahan tan meel ina geen meesii hal laga dago oo dad yar hal loo daayo marka nin baa hadlay wuxuu yiri wareerahan dhageysto yiri waqti baa nagu socda dad baynu ka soo tagnay dadkeena dhig baa taagan dadkii waxay doonayaan maanta inay maqlaan hebelgo ama hebelgel hebelgo ya dadkii dhig baa taagan buu yiri marka laba waa inay mid maqlaan hebel wuu galay iyo hebel wuu go'ay marka iyaga maxaa qasad u ahaa ma garad iyaga maxaa qasad u ahaa iyaga diin baa qasad u ahay inagana maanta waxaa qasad inoo ah marka ay leeyihiin naxnu alladhiina baayacuu muhammadan cala aljihaadi ma baqina abada annagu waxaanu nahay kuwii nebi maxamed kula baayactamay halganka diinta inta noloshayada ka dhiman sida ajligeed baa walaalayaal qofku in qasadkeenu isbedelo nabiga ku saliya alayhi salatu wasalaam in qasadkeenu isbedelo culimadu waxay leeyihiin suuragal ma aha horta waa in yaqiinteenu isbedeshaa qasadka in qofka bini aadanka maqsuudkiisa ama qasadkiisa isbedelo waxaa ka horeeya marka koowaad waa in qalbigiisu isbedelaa yaqiintaada horta waa inay isbedeshaa markaasuu qasadkaagu isbedelaya nabigu sallallahu alayhi wasallam saxaabada intaan qasadkooda isbedelin maxaa isbedelay yaqiintoodii baa isbedeshay yaqiintuna meeshay gasho waa qalbiga weeye qulubtu nabigu ku dadaalay calayhi salaatu wasalaam qalbigan aad arkaysaan ducooyinka nabiga ugu badneed calayhi salaatu wasalaam ducadiisa waxay ahayd allahuma yaa muqallib alquluubi thabbit qalbii calaa diinik ilaaha qulubta gadgadiyow qalbigayga diintaada ku korso macnaha diinta aasaaskeedu waa macrifada ilaahay waa iimaanka wey saxaabada intaanu nebi maxamed salaad barin soom barin xaj badin walaalayaal nebigu sala allahu calayhi wasalam quluubtoodu ku dadaalay calayhi salaatu wasalaam qalbigan ayuu ku dadaalay asalku waa macrifada ilaahay qofka qalbigiisa markay timaado laysa albira an tuwalluu wujuhakum qibala almashriq waalmaghrib walakina albira man aamana billahi walyawmi alaakhir samafalka dhabta ma aha inaad mashriq iyo maghrib u jeesataan ama aada u foorfoorsato laakiin samafalka dhabta ee xaqiiqiga ah waa qofka ilaahay rumeeya waa aliimaanu billah waa macrifada ilaahay waxaa la yidhi qofka marka yaqiintiisu isbedesho ayaa qasadkiisu isbedelaya haddaan yaqiintu qofku isbedelin qasadkiisu isma bedeli karo lidalika saxaabada waxa u horeeya isbedelay waxay ahayd waman lam yactaqid bihi lam yantafic shayga haddii aadan ictiqaadkaagu aanu bedelmin diinta nafceeda ma dhadhaminaysid manaafic bay leedahay diinta manfacay leedahay wanaag bay leedahay sharaf bay leedahay laakiin goormaa la helayaa manfacada diinta ku jirta waxaa la helayaa marka qofka bini aadanka horta marka koowaad qalbigiisu isbedelo oo qalbigan uu noqdo qalbi ilaahay ku xiran qalbigan uu noqdo qalbi maa siwa allah waxa ilaahay jalla wacalaa ka soo haray qalbigiisu ka go-o qalbigiisu noqdo qalbi ilaahay eega qalbi ilaahay tala saarta qalbi ilaahay rajeeya ma garad annagoo dhan maanta iimaan waa sheeganaynaa laakiin walaalayaal aan is eegno iimaanka maanta aan sheeganayno intee buu la egyahay maanta iimaanka aan sheeganayno xaalad yari hadday inagu timaado xaggee baan eegaynaa caawa ilaa hadda dadkoo dhan ahlul iimaan wey walaalkan cabdiqaadir shalay wuxuu nooga sheekeynaya halkan jamaaca la diray badankeenu rag ducaadana jamaacada la diray 10 nin oo la diray oo khaarijiin fii sabiilillaahi ah nin baa ka xanuunsaday ninkii markuu ka xanuunsaday daawadu waa sunna lama diidana in la daaweeyo laakiin eega walaalayaal qof khaarij fii sabiilillaahi ducadiisu kam intee bay la egta kam intee buu ilaahay u dhow yahay 10 nin waa tashadeen ninkii ka xanuunsaday waxaa la yidhi
aan noqono markaskii aan ku celino ninka isaga isbitaal hala geeyo luqadda daahirka ee mujtamac uu ku wada hadlay weeye laakiin luqadda dacwadu waa maxay ninka isaga ah marka xaaladaasi ku timid raggaasi dacwad bay haystaan raggaasi quraan bay haystaan dadkaasi adkaar bay haystaan dadkaasi jawlaad bay haystaan ducadooda kam inteeba ilaahay jalla wacala aqbalaya laakiin asalka meesha qofka bini aadanka ilaahay waxa uu qabanayo waxaa weeye quraankaagu haddii aanu ahayn quraan ilaahay ku xiran ka faa'iideysa quraan yaqiin aan lahayn waxba ku tari maayo quraan aan yaqiin lahayn adkaar aan ilaahay ku xirnayn salaad aan ilaahay ku xirnayn nabigu sallallahu alayhi wasallam asalkiiba horta saxaabada dhis laa ilaaha illa allah xisni waman dakhala xisni amina min cadaabi laa ilaaha illa allah waa dhufayskaygi qofka dhufayskaa galana ciqaabteedii iyo cadaabteedii buu ka badbaaday marka qofka mu'minka ah adigu aad ilaahay jalla wacala maxaa ummadan walaalayaal maalintii koowaad nabigeedu ummadda uu dacwada ugu bilaabay shaqada dacwada maxaa loogu bilaabay xikmadda ku jirta maxay tahay asalkii ayaa la dhisayaa waa bayskii wey waa meesha aasaaskii wey maxallul iimaan waa qalbiga maxallul islaamna waa qofkan jirkiisa maxallu juhdi nabiy sallallahu alayhi wasallamna waa xawaasul insaan waa qofkan dareenkiisa hadalkaaga maqalkaaga fikirkaaga araggaaga dareenkaaga markaad ku mashquulisid dadaalkii nabiga calayhi salaatu wasalaam automatically iimaanka xaggee buu aadaya iimaanka qalbigu aadaya jirkiina awaamirtii buu xambaaraya maxaa dhahay macluumaadka adiga aada haysatid sabab u noqon maayaan awaamirta ilaahay awood uma laha awaamirta ilaahay inaad ku qaadatid bal awaamirta ilaahay waxaa lagu qaataa biqadri quwati aliimaan hadba iimaanka qalbigaaga ku jira intuu la egyahay haddii iimaankaagu tan yahay tan amarka ilaahay baad fulinaysaa laakiin sidaa la ajligeed baa ummaddii maanta maasha allah laa ilaaha ila allah nin walba waa leeyahay laakiin intee bay la egtay jamaaca hadda sanadkan kenya aan kula baxay nin jamaacada iyadaa jamaaca carabay ahayd waxay yidhaahdeen sanadkii hore waxaanu ku baxnay waddan west africa ku yaala waddankaa aanu ku baxnay buu yidhi meel baadiye ah ayaanu markaa masaajid baa naloo diray meel baadiye ah oo qaryo ah waa ku dadaalaynay qaryada dadka muslimiinta ee laa ilaaha ila allah leh qaryadaa iyada ah intay baxaan ayay geed inta u tagaan bay geedkaa soo baryaan waa dadkii muslimiinta ah ee qaryada deganaa geed waa la baxayaa qaryada geedkaasaa la tegayaa geedkaasaa la baryayaa halkan ka bax adeer kaale halkan ka bax albaabku waa halkan si aadan dadkaana u dhibin nabiga ku salliya nin marka kristaan ah wallahi wuxuu yidhi nin kristaan ah waa christian ninkaas ayay ituseen waxay yidhahdeen ninkaa isaga bal ordoo booqda ninka kiristaanka iyagu waxay leeyihin ninkii kiristaankaa baan la hadlay markaasuu isoo kaxeeyey wuxuu yidhi dadka muslimiinta dadkan aada leedihiin waa muslimiin inakeen buu yidhi waxaan ku tusayaa waxa ay sameeyaan aniga iyo iyaguna waxaanu ku dagaalsannahay geedkaa ay baryayaan waa dad muslimiin ah ninkan kiristaanka ah wallahi wuxuu yidhi wallahi ninkaa isaga ah waxaan soo arkay buu yidhi muslimiin aan tawxiid lahayn iyo gaal kiristaana oo tawxiidkii qalbigiisa uu ku jiro say u baryayaan buu leeyahay ilaahay may baryaan say geed u baryayaan ilaahay may wax weydiistaan waxay doonayaan ilaahay may weydiistaan waa arrinta aan aadka ula soo yaabay buu yidhi wallahi arrintaasaan soo arkay buu yidhi aad baan arrintaa iyadaa ugu ta'afur maxaa dhacay walaalayaal nebigu sala allahu calayhi wasalam ilaan sheegato qofku inuu noqdo ood sheegatid oo qura waxba kuu qaban mayso laa ilaaha ila allah
حقيقة ذا إلهي نقرب سبحانه وتعالى حقيقة سنقور ما إيمان إساء مركا أذوق آد إلهي جل وعلا آد وينيسد ودوحة إلهي كسو حري آد يريسد كالمدن أصل كتوحيدكو ويقين ويقين قلبك إن يقين تاسد مادو سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مركي النبي محمد الدنيا ذا كتجي الصحابة دي آد كأمر ويسنايين أو عمر هل كتاجون له والله ننكر هذا النبي محمد وارد انت قورتان كجريا أيوة أبو بكر صباحي حكى المدبوير عمر وفريسوير من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي باق ونكي النبي محمد عابد الجرو النبي محمد واتقي عليه الصلاة والسلام ننكي إلهي عابد الجرون إلهي وحي باقي مركز آيات وآخري وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نبي محمد نبي بو أها هرتيس النبيال بدن الدنيا ذا يكتجين هدي للدلو أما وبردنتو معرفتي إني ما دي بقول نقول إنسان وفك عرفتي سدي بقول نقض إلهي سبحانه وتعالى وحبكوا اللي بما يمروا بإلهي وأبال مرينا يا دتك شاكرين شاكرين توايو ودتك إلهي كحرا ودتك إلهي يقانا في السراء والضراء حالتك استا عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير نبي حوري أرنك قفك مؤمن أي عجب يا شيء لياب محاد عي إن أصابته سراء شكر مرك النعمة وقالوا إلهي بقوم هذا نقيا وإن أصابته ضراء صبر مركو دباتك لنا إلهي بقوم صبريا لماذا حال ضد بإلهي بقوم حري إيمانك إيجا ولا ليالي إيمانك حال ظهن الدنيا ذا وحتجيا لكن وحباقي النقونيا فعلك وحباقي النقونيا مرول با وفعلك آد سميسي فعلك ونمر والباء وحو كترجمة يا إيمانك قلبك كجرة إيمانك قلبك كجرة يا فعلك إلهي سبحانه وتعالى ملائكته صادري مركز سكوير أرضه هبل إننكيسي سوق هذا ملائكتي روح ذا قادي سي ملك الموت كي روح ذي علمه ننكا مركو سوق هذا وأن المؤمنة إلهي كحر إلهي ويدي وحكوير قبضتم ولد عبدي أدونكي ويلكي سي مسوقادا مركز ملائكة وحيرا نعم إله وسوقبا قبضتم ثمرة فؤاده مريه قلبك سمسوقادا مركز سير هذا نعم إله وسوقادا المعروف مريه قلبك فماذا قال عبدي أدونكي محوك جواب مركز سير ملائكة وحيتري حمدك واسترجع إلهي وكوم مع النقي ونكوصوا النقضي وحوري إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي فعلك ووتك لكن رب العزة محوك جوابي أبنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد أدونك قري جنة وقلسة قري أنا وحادكم مقعودان قري معدنقة وقري لغم معدنقي حالد ولا ليالوي تقيسه حالده ويتجيسا ماشى إلهي جل وعلا إنك إيجيو إلهي إنه قلم عامله وقلوبته مرك أحوالي إنه قلت ما ده كم انتبان إلهي إيجينا كم انتباد ما أنت كوكل صون تاعي إيج دينتي ما أنت صورة بينك النقط صورة إيج دينتي ما أنت صورة بين النقط معها إن لإزداوي إن ولا ليال ما تشوقنه مليهن محادتك اللو داوينا يا ما أنت إسبطال الذي وقوى سوي بوحان لكن إلهي بان كل شيء كم أنت من كوكل صوناي هذا النبي عليه الصلاة والسلام اليقين بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنت من كوكل صوناي هذا الإلهي الإلهي مركو إن اللي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة
قرآن كم حانو سود الجنبي الإلهي إنه عافمات النغضو دتك آمن سن ظالمين توحك له زيادة الماء خسارة ما يحبوا زيادة الماء ظالم كواي وقف كان قرآن كآمن سنوي كم انتبه القرآن ككوكل صونا إلا أمضي القرآن كيننا إلهي بين سي هذا النبي عليه الصلاة والسلام عاو انتلو كوكل صونيا هذا النبي عاو داووا أمراضكم بالصدقة عذر ردي إنكم بسكونيسية صدقة عاو لباتن كنو دولار هندي هلو قدر اوبريشن هكسو قالو هذا النبي هدين هوسو ايغنو عذردي ان كبسكوني سير النبي صلى الله عليه وسلم صدقه اغونت دربيغا غوريغا كوغو دغن حتى دبك وشدد كم انت يا عليس الهي اديغا كاغا قاداي كم انت عليس بو الهي نوغا قاداي markaad caawa 20 kun oo dool مقصودكم معها ملهيان الإزداوين لكن أخي الأهم فالأهم وحبا كم ويمسن إن الإلهي سبحانه وتعالى قرآن كإنه نآمنه إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم آمنتد الراحمون يرحمهم الرحمن بير النبي صلى الله عليه وسلم كوا نحرست إلهي بقى نحرسته نبا سوق الشقدي أصي السعودة أي الله صور شيء إنك سيرا وسكرات مركو سوق هذا أيوه هو أركب بالصدير وعرورة نجح لدعيسو بالصدير يد بسوق هذا عرورتي بكعلي وسوق هذا مال بكانه ونحرستي راشنا وسي مدير كدب وحارك الميسي وعياري وإلمي سكرات كها ألقى معينه كقاضنينا يا الراحمون يرحمهم الرحمن هو نحرستي ونحرسني من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته خبرك وحنوى النظر وحنوى خبر لباتذا إنه سعاوة اليقين على الخبر بامقا اليقين بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر كان النبي محمد ينوشي عليه الصلاة والسلام قالت إلهي جل وعلا خبرك ينوشي عاوة كم انت ينقوك الصنع دينتك الشقية رزق كريم هذه اللسان صلاة كذا نلشي إنها هجاجي صلاة هذا هجاجي يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وركو إلهي الرميو كالميست الصبر كي صلاة هرتا نمكن للحظ يوايو على يوم لمدهن حسنون لمدهن يا أيها الذين آمنوا بالير هو إيمانك وصاحبك أو صاحب الإيمان مرك حالة كنت مع الضوء نمكن سقدح لبدن قري سقدح أي علمي سيارة سكرات علمي با سكراتي نمكن إسلامتي بكعي حاسكي بكعي علمي وحنوسيها بترككع تاكسي يا خرج تاكسي بالدوني خرج بالقلي دكتوركي بالتجي إنكي مر الله مركي دكتورك اللي جي نفتي بابا كدعدي كي كلنا جيران كي كلنا وحوير مركي تري ورينكي بالله يا وسكرات ككع أيوه أدر أذقنا ويسيس أنا ويسيسنا يا برهرتا إنه صلاة الحاجة كنو هذا إلهي بايري يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وركو إلهي الرميو كالميست صبر كي صلاة صبرك مركح أذيك حالتك وقلت ما أدو هرتا وحكوات صبر هأردد صبر لأن قفت الدمر كهذا النبي عليه الصلاة والسلام المهم كان انتي نبي صومري مركزو كويري ور كواد هذاني إلهي صبر بكويري اتق الله واصبري إلهي كبق يدو قبري ككر ويس مركزي كتري وحا إيجاري وكمي إيجارينا هذا الأرض اسكتك مصيبة عني يقول عادي وكمي دعان الأرض اسكتك dadkii baa u sheegay waxa leeyahay ninkii ma taqaana kula hadlayay Nabi Maxamed buu ahaa intay soo orday bay u timid markaas waxay ku tiri kumaan garanayna haddaan sabraya diyaar u nahay nabigu wuxuu ku yiri inma as-sabru 'inda sadmati al-ula sabarku waa qacad hore sabarku waa goorma
صبرك وقعده هوري مركي كواد إلهي صلاة حتى وكون رسول يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وركالميست الصبر حالات ما كنت هرت الصبر ازدج مرك اللبادنا الصلاة كالميسو حاس كبا تكتي أتنوى تكت الماسي حتى هديتي الله أودي ما أتماضو لكن أمر الحال بات فانتين أمرك يا حالات دا يدون كسو فورني ولا ليل سيدا لأجل قيد دينتن أذرك إنسان روح ديدو ولا ليل وإيمان دينتن قرمي نكفى إيدينا دينتن وحين نكفى إيدينا مرك قلبك إن إيمان كجرو قرآنك وحاد كفى إيديسا مرك قلبك إيمان كجرو أذكارته وحاد كفى إيديسا مرك قلبك إيمان كجرو يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وصبحوه بكرة وأصيلا صلاة وحاد كفى إيديسا مرك قلبك قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صلاة هذا قول ما تكفى إيديسا مرك قلبك إيمان كجرو لذلك السيدة لأجل قيد أي أنه قرن وحال ينقدون يا ولا لا الإلهي جل وعلا إلهي وقلبي جري إلهي وقلبي جري ماشو إنك إيجي وقلوب توي الزمن كي مالك بن دينار بوحالير مالك بن دينار لمنه ولا لا من نوع شن يلبا تنجر من نوع تضبي يلبا تنجر كي وينا labadaba uu ku dadaalay kii yaraaba islaamnimada soo galay kii weena waa diiday walaalkiis baa u yeero wuxuu yiri walaal dabkan imisa sana aabaheen baa ku dhintay awoogeen baa ku dhintay anuu kaasan ku baaqan noqonayaa buu yiri yarkii yaraa islaamnimadu soo galay marka uu ka soo guuray dhulkii uu joogay waxay yiraahdeen hadaadan nala caabudeen dabka naga guur Ciraaq buu yimid magaalada Basra la yiraahdo guryahan magaalada markuu sida u soo galay xaaskii caruurtiina uu wataa meeshaas u tagay mariyay rootay buu guriga qorraxda caruurta uga dhigay guryahan korka aan ka lahayn magaciisiga wax lagu dado subaxii buu xoog xaraashka istaagay meesha dadku ay shaqaalaha wadanada carabta waxaad arkaysaa dhul xoog xaraash la yiraahdaa jira oo dadku xoogooda ay soo xaraashayaan ninku wuxuu la imaanayaa faashkiisa madaraqiisa magaciisa meeshaas u taagan yahay ninka guri dhisanaya shan buu kaxaysanaya laba kaxaysanaya ninkan meeshii markuu soo istaagay wax kaxaystaa la waay 10kii subaxnimo markay ahayd ama 4 saac subaxnimo qolaba sida u taqaano ayuu masaajidka dalaq yiri salaatul duha buu tukaday salaatul haajana waa tukaday salaatul duha salaatul haaja ilaahay buu bariyay galabtii buu gurigii yimid markaas xaaskii ku tiri war hebelow bal warano maxaad noo keentay axad baan u soo shaqeeyay buu yiri laakiin axadkii aan u soo shaqeeyay wali imu xisaabin iyadu marka axadka maxay u haysataa ya shakhsi buu haysataa marka subaxii labaad buu haddana baxay meeshii xoog xaraash ku istaagay dadkii kala isaga waa laga tagay لكن شغلنا الباب كانوا كاحرم الباب كي كفرا الباب كي أسبابته كاحرم لكن الباب كي كفرا الباب كي عماشا كفرا أسباب تنكلا إلهيكم مبلن قادم دكان هذه اللي نلول ونكسب بذلك إلهيكم مبلن قادم إلهي إيمانك يا عماشا كبلن قادم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة إلهي بقبل لنقاذ قفك عمل صالح لقيه لي أما الله بهالنقضة أما ندق حاله إيمان لي وحانه إلهي لكونه لين نلول ونكسر ودلالي ماشي أسبابته استاقي وعلى قادم وي طبعا كي الصبح لما مركي أهيد بو مساجد كو قلي إلهي ببري واختقاء إلهي بريو أي قرقي لصوقر قرع كب قصده وقصة كتابية كتبته يكون لقد gurigiisa la soo gargaraay qab markaas ay xaaska tir waa kuma santuuq buu u dhiibay wuxuu yiri anigu axadka ninkaaga u shaqeeyay shaqaalihiisana hay santuuqan qabo midda kale haduu ku yimaadana u sheego waxa tiraahdaa shaqadii kordhi
أنا يضاعد عبادة الشقاء من نقان الموت يا شغل يكورلي حاس كي سنتوقي مركي فرطي وبالدينار كي زمن كا دينار كل استعمال جري ذهب وها هل دينار بسوق عطي دكان مقالة الطرف كذا هبي وقيسي نمكن دكان كدينار كيبو وحير الدينار الدنيا ما أكل دينار كمان أنت الدنيا ذي ربع دينار بالدكان كي وحيدون السوق نمكن سوق عطي odagii laakiin walwalbaa galay oo gelinkii dambe wuxuu yiri maanta wajigeen caruurtiisa waxba uma wado ilaahay jalla wa ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ilaahay meel aadan filayn ayaa rizqi guriguuba ugu horeeyay caruurtiiba ilaahay jalla wa ala marka ninkii masarkiisii buu la soo baxay ciid buu ka buuxay wuxuu ugu yaraan caruurtii markay koriga arkaan bal aabbu waxba ma wadayay noqonayna bal ugu yaraan gacanta on gacan qabsi ha ku noqoto ciid buu ka buuxiyay amood mar alla markii ilmihii ay arkeen ku soo ordeen oo wixii fureen ilaahay daqiiq buu ka dhig amarkay iska walaal walaal qasadka وحنا لا يا بماها وش النبي موسى مرنا قلبا لقى دقي مرنا عبيسا لقى دقي ما قلت إن عرض دقيق لقى دقي إليه أكتي سمحيكته وما ذلك على الله بعزيز وحنا لا يا بماها لذلك قصدك مقصود كوام محي ننكن مركي حالتي أي كحماتي ولا المساجد كو قال أمضى ما أنت محال لقى الدنيا علماء ما أنت مركي إن لين جهدك النبي صلى الله عليه وسلم جهديgan maanta maxaa lagu doonayaa culimadu waxay leeyihiin juhdigan waa laba qaybood qayb waa hijra qaybta labaadna waa maxay waa qaybta nusrada ah culimadu maanta waxay leeyihiin waxaan doonaynaa masaajidada caalamka oo dhan 24 saacadood inay shaqeeyaan masaajidku 24 saacadood inuu shaqeeyo ودتك المساجد كشقينا ودت سداء ودت إلهي كوكلصون إلهي آمن سن إلهي مركو ليه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر يا بيت كان عمريا قف إلهي ما ننت قيامها آمن سن تعمير المسجد ننك مساجد كعمريا مساجد كوقت سينيا مساجد كالمسجد بيت كل تقي مساجد كوقف كستو تقي وقرقيسي قصد كمان علماء أي دنيا وامحي وحال الدنيا يقينة أن كهل إنه حجابه كدسنتا إله جل وعلا مركو كهل الله نور السماوات والأرض آياتها صوتا صوت آخر كإله وحوري في بيوت أذن الله قريها سيقين تلقبرنا يا ماشا إلهي جل وعلا ودقي وقريها وبيتك إلهي علماء مركي ليهن ورمالين والبمساجد ذا السقوع ماذا مساجد ذا عمرة أو ما يلها قاركود هذا عالم كمركي آنو تقني شيخي هذا واجد ويد إذن يملي هالكن يملي شيخ عبد الستار وحويري لبب بقول مسجد أيام مواد ماشي اللي هذا أفر إيه لباتن ساعة ضد شقية قصد كمان تللي هي ودكتور نقو انجينير نقو بروفيسور نقو لكتشر نقو تاجر نقو لكن صاحب المسجد نقو لان مساجد كحر نقو مساجد كان وحل الدنيا وامحي ولا اللي وحل الدنيا مركي انه مساجد ذي تعمير المسجد لقيها له مساجد ذا انا عمرنه حلقات تعليم بالله بلاب رقبه بحيو ددك مساجد كادرافتي سجوغ هل كان والغلال ذكرها ما هو ما انت بلاب عبد الله بن رواحه معاذ بن جبل وحيلها وارتعالوا نؤمن بربنا وركالي ربك ان ساعد رمين انك مرك ايمانك ما انت الهي نغو ادونسدين نقرب وا ايمانك معيارك ايمانك اللي نقرب وا ايمانك صحابه الهي وليهي فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا حدي اي ورميان سيدي idinku saxaabada nabi maxamed aad u rumayseen iyaguna way hanuuneen معيارك ايمانك اللي نقرب waxa la doonayaa si inaguna gargaarkii ay heleen ay u helno
ولا ليال وحال دوني جهد الإيمان بالله نقربه جهد الإيمان مركينو صمينو صلاة دادي وحبيكو قوينيسا صدقدي وحبيكو قوينيسا قرآنكي وحبوكو قوينيا ذكري وحبوكو قوينيا ذكري وحبوكو قوينيا إله بان كل شيء طبعا أو خارجين في سبيل الله مركز كنتي كوسو النقدان أي ننكحن سدائر هذا ننكن الله شوريو هذا الكاس مصحبة يمن كاسي بقول وحبيه هستين بقول كاربي هستين كارك كوادوام حي كارك صلاة دي هستين أو كارك قرآن كي هستين أو كارك إيجو إني مذاكرة أنت اسكو قبتان ويرادان ورنين كان حالدا إلهي بحد أوكيانيه بالهرطة أن القرآن كو أخرنه سورة الفاتحة وشفاء من كل داء عذر ربن بيداوته اسوه القرآن كو داوته لكن قرمين وحن كفا إذا سنينا ولا ليل ومرك إيمانكو إنو دي سنيا ما أنت مرك اللي هي جهدك النبي صلى الله عليه وسلم شاك حرير معها ولا ليل أرد هلا بحال خروجه مساجد ده هلا قشقي وح ماشي اللي قدونيه محام ماشي اللي قدونيه وح اللي قدونيه وحاوي إنه يصبحان ضد إلهي كحرا ضد إلهي تلصارته ضد إلهي الرجية كو إلهي جل وعلا ضد معرفة إلهي سبحانه وتعالى لقهلي أكبر سبب استفادة من قدرة الله ومعرفة الله في قلب الإنسان سببت أقوين قدرة إلهي اللي وقفها إذا استمحيتها ومعرفة إلهي قلب قاقة إن لقهله معرفة قلب قاقة مركة اتماده وحاكوف الظاني سحالة والباء وحاد إلهي ويجي ستد إنادن إلهي كواي سيدا لأجل قيد با ولا ليال قصص كان أخرين هبيني مالن وإنه قف لنيهين قصص كا صحابة شيخ يوسف رحمه الله مركي لو يجي لقوير شقدا أصول نوصمي وحويري أصول شقدا وحياة الصحابة صدح لا مجلدود مشيخ قري كتاب كحياة الصحابة أصول كلمة جرتيرو أصول شيء إنه أنجا وحياة الصحابة نلش الصحابة أيا إنجا معيار إنه أنا نيجنو صحابة نلش ودي محيا هاي نلش الصحابة ولا ليل وحيا هاي مركب ما أنت اللي هي والمساجد ده إنه عمرنا وجهد النبي عليه الصلاة والسلام إنه كشقينه حياة الهجرة والنصرة لبضان وللود بالنصر إنه يلا الله جل وعلا وليه هي والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم كوي إيمانك لغاها لي آمنوا وهاجروا دينتي إلهي بأبن بحان مركزي أهل جميل والذين آووا ونصروا إيكوي كوا إيجا مركي إيمادين سودوي مستورات كبير قريها أفران oo soo dhaweeyeen oo ku dadaaleen oo guryahoodii bay fureen maxaa laga helayaa faa'iidada laga helayo gurigaaga markaad mastuuraadka ama jamaacadka guryaheena inuu furno faa'iidada imaanaysa maxay guriga khayr badan buu gurigaasi helayaa markaad jamaacadka ahlu diinka ah ee khaarijiinta gurigaaga aad u furtido aad ku soo dhaweysid 10 qof gurigaaga markay yimaadaan وحبا أديك كاغما باهنا خرج كودي ويوطان لكن ولا ليال هدي أد النصريسد أود أدوغو سود ويسدنا كصيفي عن قريقا مركي صوغلان إلهي جل وعلا قريقا جي وحون نقونا يا قري خير كسو الدقو أو ملائك كسو الدكتو أو وانا كسو الدقو أو جهدك النبي عليه الصلاة والسلام وكبل عمو قريقا وحون نقونا يا قري أعماشي النبي صلى الله عليه وسلم أي كسر نولات حلقة تعليمته تصحيح القرآن إن شورا لجهله أو تشكيل لجهله أو صفات كي صحابة اللي أخريه كم أنت بقولي جالس مركز قيمة يلانا يا أولادي مركز وحني عدبت الكل قنيا المهني وحين قنيا المتربية هلا قولي جينا وإنون نولادي مساجد كينا وإنون نولادي مساجد هذا مركز إنه عمرناه علماء waxay leeyihiin maxaan doonaynaa masaajidadan dadka xaafadaheena ku nool maxaan ka doonaynaa dadka xaafadaha hadalkan si fiican u dhageysta dadka xaafadeena jooga waxaan ka doonaynaa masaajidada markaan camirno
shan shay baan ka doonaynaa. kow, ninkaa muslimka walaalkeen waynu booqanaynaa. marka koowaad waa inuu nin musalli ah noqdaa oo masaajidka ku xiran. waa arrinta koowaad aan ka doonayna. ilaa culimmadu hadda waxay leeyihiin waxaan rabnaa masaajid kasta inuu markas noqdo, madax kastana inuu noqdo masaajid, inuu noqdo qof kastana inuu ummad noqdo. maxaa marka annaga laynaga rabaa? madaxyadan la leeyahay maanta ziyaaraad ha la qaado, xikmadda la doonayay ugu qiimaha badan waa maxay? waagii hore waxaan dhihi jirnay ziyaaraadka markaan qaadno oo dadka aan booqanno, horta marka koowaad adiga daacigay hadlayaa taqyiirul yaqiin, yaqiintaadiiba isa soo bedelaysa. laba, xaafadii taariku salaadkii baa ka baaba'aya. saddex, jamaacaadkii inoo baxayay baa badanaya. afar, jamaacaadku markay inoo yimaadaan inaynu inagu soo dhaweyno oo la shaqaynaa inoo fududaanaysa. hadda culimmadii taraqi baa dhacay. waxaa la leeyahay waxaa la doonayaa qof walba meeshiisa in loogu tago. qof walba madaxyadan masaajidada waxaa laga doonayaa shan shay. kow, shayga koowaad ee masaajidka aynu ka rabno waa maxay? booqashada la booqanaya maalin walba qofkaas muslimka ah ee jiiraanka masaajidka ah inuu musalli noqdo. laba, waxaan doonaynaa ninkaasi inuu masaajidka dadaalka ka socda uu cilaaqo la yeesho ku xirmo. ninkaa markaan booqanno oo cadamada ilaahay kala hadalno, aakhire kala hadalno, oo aynu isaga kala dooransino masaajidkaynu tagnaa ma gurigaan tagnaa. hadduu yidhaahdo halkan igula hadla, meeshaan kula hadalnaba waxaa wanaagsan bay culimmadu yidhahdeen in xalaqada masaajidka ka socota aan keenno, halkan kula hadalno. maxaa dhahay? halkanuu ku saamoobaya. waxaan doonaynaa markaa kadib inuu masaajidka dadaalka ka socdo uu cilaaqo la yeesho, daaci noqdo. hadday xalaqatu tacliim tahay, hadday jawlo tahay, hadday ziyaaraad tahay, wixii markaa isagu uu qaadi karo. arrinta saddexaad, maxaan doonaynaa ninkaa gurigaa maxaan ka doonaynaa? xaaskiisa iyo hablaha waaweyn inay tacliinta usbuuciga cilaaqo la yeeshaan oo kusoo xirmaan. arrinta afraad waxaan doonaynaa walaalayaal ee aan doonayna maxay tahay? arrinta afraad waxaan doonaynaa allahuma salli calaa maxamed wacaley, gurigiisa in acmaashii oo dhan laga helo. gurigaa isagaa ninkaa in gurigaa acmaashii oo dhan laga helo. acmaashii guriga in laga tacliim qura maaha, tashkiilkii, shuuradii, tasxiixul qur'aan, waxaasoo dhan guriga waa in laga helaa. arrinta shanaad, culimmadu waxay leeyihiin caruurta xaafadda joogta. eega hadda hadalkan, caruurta xaafadda joogta, qaar agoona, qaar hooyadood aanay waxba haysan, qaar aabbahood laga yaaba inuu handicab yahay oo ninkaasi macduur yahay. ilmahaas waxaa la doonayaa xaafadda jooga inaynu malcamad masaajidka dhexdiisa uga samayno. dadka xaafadda jooga malcamadda iyagu waa inay kafaalo qaadaan. culimmadu saasay leeyihin. iyagu maktab bay yidhaahdaan, laakiin inagu waynu lahaan jirno waa dugsiyaal. meel walbana dugsigaas qur-aanku wuu inoogu yaalaa. masaajidadaynaan khali ka dhigin baa layidhi. awlaadda masaajidada macallimiintana dadka xaafadda jooga ha kafaalo qaadaan. haddii taa la waayo maxaa imaanaya? waa dhaweyd qisaa ka dhacday nairobi. axbaabta qaarkood maasha allah jazaahum allahu khayr ay soo wariyeen. qisadaa iyada ah waagii dhaweeda aanu burco joognay, waxaan jecelahay xuseen saciid inuu qisadaa iyadaa isagu noo soo magaciisiiyey. qof dumar ah, eega walaalayaal, ayaa caruurteedii qur-aankii bay u dirtay. markay qur-aanka u dirtay, waa agoon caruurtay hayso, macallinkii baa soo eriyey. wuxuu yihi lacag haddaydaan haysan ordoo gurigii ku noqda. 5 caruur ay haysataa. 5tii caruur ah macallinkii wuu soo eriyey. kharashkii dugsiga maadaama ay bixin waayeen, hooyadii oo murugaysan oo walwalsan ayaa waxaa u yimid gabadhii shaqaalahayd ee guriga uga shaqaynaysay kiristaanka ahayd. ayaa weydiiso, waxay tiri maama maxaa kugu dhacay? markaase waxay tiri lacagna ma hayo, caruurtiina waa la igu soo celiyey oo caruurtii qur-aankan u diray inay bartaan. marka maadaama lacaga aanu jirin, 5toodiiba waa la igu soo celiyey. gabadhii kiristaanka ahayd baa markaa waxay ku tiri, oo annaga caruurtayada lacag baa nalagu siiyaay, annagu lacag ma bixinay tiri, annagaa lacagna lagu siiyaa.
oo xagee meesha lacagta laydinkaga siiyo naagti kristaanka ahayd bay u geysay naagti kristaankeed markay u geysana waxay tiri shantaba noo keen caruurtaaduna bilaash baan wax ku baraynaa adigana guriga kiradiisa annagaa kaa bixinayna 2 bilood 3 bilood 4 bilood siday u ahaayeen markii dambe kristaannimadii baa loo soo bandhigay caruurtiina dee aad baa loo dhaqaaleeyay islaantii caruurtii waxaa weeye diintii sidaasay uga baxeen oo gaalnimay qaateen marka taasi markay dhacday ayay dadkii muslimiinta qeylqeyliyoon maxaa dhacay caruurtiiba waa la qaatay kaniisadda agteeda guri weyn oo qurux badan oo yaalay ayaa leeyahay halkaan noo deganaada wax u soo gali karana mal bodyguardka wax u soo gali karaba mal waa goor xeer iyo fan adar culimadu markii inay leeyihiin caruurta xaafadaha joogta haddaynu caruurta ilaalino kii xabaglihi maxaa caruurtan maanta inay xabaglagayaal noqdaan oo maanta ay dadka boobaan oo dhacaan maxaa keenaya walaalayaal markii ila nin walba nolosheena hadda waa nolol infiraadi ah nin walba ninboo nafta nabiga ummadda baan ku jirnaa laakiin haddii xaafadda aynu u fakarno fakarkaasi uu xaafadeena saameeyo ilmaha ka agoonka bilaash buu ku dhiganayaa macallinkii innagaa kafaalo qaadayna dadkii xaafadda joogay baa kafaalo qaaday lidaalika sidaa la ajligeed juhdiga masaajidku walaalayaal ma fududa arrintan waxaa lagu doonayaa baadilka caalamka yaallo oo dhan inuu burburo haddaynu inagu dad nebigu sala allahu calayhi wasalam ummadda masaajiduu ku xiray masaajido ummaddu markay dadaalkan qaadeen oo dadaalkan ka shaqeeyeen asnaamtoodii baa la hadashay sanamkoodii baa la hadlay wuxuu yidhi zamankii sanamku wuu dhammaaday zamankii masaajidadaa bilaabmay zamankii walaa zamankii sanamyadu way dhammaadeen ninka sanamkiisii baa la hadlay juhd almadluub markii mustawa almadluub uu gaaro oo dadaalkeenu mustawihii la rabay uu gaaro oo dadaalkeenu dadaal xayaatulhijra wannusra hijradeenuna 4 bilood noqoto 8 bilood aynu joogno maqaamigana aynu noqono nin walba walaalayaal intuu bixin karo 4 saacadood baad bixisay 8 saacadood baad bixisay masaajidkii 24 saacadood aynu camirno baadil soo haraya ma jiro baadilku baaba'aya maxaa ilaahay baa ballan ku qaaday qul jaa alxaq wa zahaqa albaatil ina albaatila kaana zahuuqa ummaddu hadday ummad masaajida ay noqdaan nabiga sala allahu calayhi wasalam dadaalkii uu waday markuu mustawa almadluub gaaray ninbaa neefkiisii waxaa kala aridaajiyu ahaa neefkiisii baa waraabe kala cararay markaasuu ka daba orday oo ka daba orday oo ka daba orday markii dambe ayuu waraabihii ka tuuray ka dhigay xayaatu saxaabi ku taala markuu waraabihii ka dhigay neefkii ayuu waraabihii luqad carabi oo fasiixa kula hadlay war ma risq ilaahay isiyey baad ii diidaysaa ninkii baa yaabay markaasuu yidhi waa cajaba ma waraaba luqad carabi oo fasiixa ku hadlaya markaasuu yidhi aniga ninka iga cajiibka badan makuu sheega haa waa ninka nebi maxamed oo yathrib jooga aan waxba warkahayn waraabihii baa ninkii la hadlay ninkii magaalada madiine markuu tegey oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam arrintii uga sheekeeyey nebigu dadkii buu isugu yeero wuxuu yidhi ha loo yeero dadkii reer madiina ninkii buu yidhi arrintii aad aragtee waraabaha bal uga sheekee dadka haddii dadaalkeenu uu mustawa almadluub gaaro mustawaha la rabay uu gaaro oo inagu aynu juhdiga nebiga calayhi salaatu wasalaam nicmadan aynu qasad ka dhigano walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala inagana wuu ina cizeynayaa ilaahay intii sheekhu uu sheegay ee ay ugu horreysay nusratullaahi wa maciyatullahi ee ay ku xigtay noloshoo barakooda ee ay ku xigtay dullinimadoo la inaga saaro acizaa la inaga dhigo oo ay ku xigtay mustajaabu dacwa ducadeena in la aqbalo oo ay ku xigtay quluubta khalqigo ilaahay maxabo kuu geliyo adiga ilaahay ku jeclaado oo jibriil yidhaahdo malaa'igta u dhawaaqo yidhaahdo ilaahay baa hebel jeclaaday jeclaada waxaasoo dhan goorma imaanayaan waxaasoo dhan waxay imaanayaan walaalayaal markaynu qasadkeena bedelno qasadkeenuna ma bedelmayo culimmadu yidhaahdeen
وإن يقينتين أي إسبدشاه شيء صدحاده قدام بيا وإن فكر كأنه إسبدله وفكر كأنه أنا نقول فكر ميل نبي عليه الصلاة والسلام ميل وكده ذالي جزيرة العرب نبي محمد كمبحن لكن فكر كيس عالم كردن بوها هذيك الداعية أنا وحال يارب فكر كأنه فكر عالمي عن نقض فكر كأنه وإنه عالم كردن نقضه مساجد كده ذال ميل كده ذال لكن فكر كأنه وإنه عالم النقضه أرنتك له ولا اللي الوحاوي عاطفة اتجاه إنه وإنه إسبدله اتجاه ننك داعية أما ننك مسلم وإنه آخر النقضة قرض كأنه وإنه هم جينه الدنيا نقول هم جينه وإنه آخر النقضة محاد ذلك محاد دون رضا الله إلهي نكرر للنقضة ألا لله الدين الخالص إلهي الدين خالص ودونية قرض كأدود ذلك وإنه النقضة ابتغاء مرضات الله إلهي جل وعلا ولا ليال إلهي وحدونا يا مركا آد عمل سميني سيد عمل كاسي إنه نغضه مد إلهي أبر احترا سبحانه وتعالى الله هنا فهم سيو نغضد قدام بيسو حاوي اسبدل كل دوني إنه نقضعه والتغيير العواطف عاطفذين وإن اسبدل شه عاطفذين قفك مسلم كأه عاطفذاذو وإن ظهرت فهمتها إن المسلم تهي ومد النبي محمد أتكتهي شغل هذا أي تهي شغل النبي عليه الصلاة والسلام عاطفة إنه نبي محمد عليه الصلاة والسلام أمد بولس النبي صلى الله عليه وسلم غير مدسن نبى النبي قوي عليه الصلاة والسلام حكير يا رسول الله أنا طلق يجعل هذا ما قبيالت ما يوير إن حق درن كل عدد باقي بيارده تلك كدل وأفكر وجهنمك بدبادم حد عي وانذر لعشيرتك الأقربين ذاتك حكت هذا وأنا ضدك تعال لكن وأنا أقول النبي صلى الله عليه وسلم أمت بورسي نبي محمد سلمان الفارسي هي صهيب الرومي بلال الحبشي أبو بكر القريشي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه نبي محمد أمت بورس ولا لا وإن درين كانوا نقضاء درين أمداد فكر كانوا وإنه نقضاء فكر أمداد درين كلا إن قربوا نبي صلى الله عليه وسلم إيجا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أعداء الإسلام عاو مركي دونيان إنك إنك لقيبيان محل إنك لقيبين أساليبت أمد الوك البربريو وأفر أسلوبات بعلماء يرادان ومحي غير هبل باتاي قوم فلان باتاي لقدا ذنوا لقدا ودن كاغونا وودن كا إن مذهب كاغونا ومذهب كا إسلام كقفك مسلم كأه المسلم أخو المسلم إنما المؤمنون إخوة الله نفهم سي أعداء الإسلام نبي صلى الله عليه وسلم رجوا كده ذلك وبلال وحبشية سلمان وفارسية صهيب والرومية يا أبو بكر وقريشية نبي أمد بولس عليه الصلاة والسلام أعداد مروا البوحي دونيسا إنك مركي دونيا إنك التبيان وحي إنوك التبينيان وإنو دحقليان أعداء الإسلام مركي دونيان علماء وحي رادين نيفكم ما حلالوا إلا أفرتا حديد لقوية معي نيفكم مركان دونينا مركان لقالوا وين أفرتا حديد لقوية مركان سو نيفكاس حلال نقوني أظن وين أفرتا حديد اسكقويسا منك داعية عاطفه وإننا عاطفه اللقدات يعاطفه وطن يعاطفه قبيل وحاصلن وأنا كان نظيفته شيخ عبد الوهاب وحن كبغلي جرا مرر بدن ولا قفك الدلال كم وضع لكن عاطفة قبيالات كوضع إلهي سبحانه وتعالى جهدك النبي هو استعمالي معي ومردود إلهي سبحانه وتعالى عاطفة هذا وإني مرول بالنقطة عاطفة أممية شيخ مرول بهذا الكيس وحوها باي هم باكستانيين هي أنه باكستان منهن هندي منهن بنجاب منهن سين منهن قل يا باكستان شوغا أنه مسلمين باناي ومد النبي كان شقدين وشقد النبي عليه الصلاة والسلام قفك مسلم كإيه الدلالك كلوضة ولالك وإنه قيمة كل اللي عاطفة هذا وإنه نقطة
عاطفة أمضيت وإنه نقطة وإن عاطفة أعداد مركي دوني خلافة قدام بيسي إسلامك إن المسلمين تكبر بريان عرب أتقون وحيرة إذن كان النبي محمد الله الشيء تركي حقيب وإذن كسو قال خلافة الإسلام كدا قد يكبح مر قبيل بالغو استعمالها أمر وطنيات أمر وحلغو استعمالها صورة أمر لقد بالغو وحاصورا وإن الدرنتا مسلم مضاضو إني غالي تهي مسلم مضاضو لقم لها وطن كاغا إنكر لأن وطن كاغا قادم ماي هذا إسكاله ماشي بقعد إلهي بقود شيء لكن مهمة دوام معي ننك داعية وإنه نقضان أمداد ولتكن منكم أمة كنتم خير أمة إلهي جل وعلا أمد تي أو خير كبنيت بان كدق وإن أذيك فكر أمداد ولا ليال إنه جرا همي أمداد وإنه جرا درين أمداد وإنه جرا علماء ذا أفري لا تنكسع سيدنا إنه عالم كجماعات قدرنا سي مراكز كجماعات قدرنا سي جيران كجماعات قدرنا سي ودن كجديس وقدرنا قف كستوحال دونيا حدي درين كودرين أمداد نقضه إلهي باب بترول كوكو شوية بترول كالعالم كوكو جاري لين يا كوكو شوية إلهي باب كو استعمالي قف كمركب فكر كيسو عالم نقضه وفكر أمداد كتيره سين أمد وجود ذاله غير بني إسرائيل أي أبار باكر عادي بركاسا نمبا وحير الله بور بصامر وحير بور تاسو من السجاء أما هرورة إلهي هدو يسين لها ضد كانوا قيمين له نبي الزمن كجوجي على الله هدو إلهي جل وعلا وسوى حيودي وشيك بالي بور تاس وهرورة أي منك الله قرئ إنه بحيه فكر كاجا أي إلهي قيمة أكتي سكله فكر كان وإنه نقضى فكر أمداد فكر كان إن الله يحب معالي الأمور إلهي أرنت تصروج عليا مرول با ولا ليال باهيها عالم كتشوغ إلهي جل وعلا نوه البو إنك ينقمده وحال الدنيا إنا نراهنو إلهي إنه استعماله عن ديار نقنه لكن فكر كاغ عالم كدك أو فكر أمداد كدك أو دلال كاغ اللاب لباللاب أو إلهي جل وعلا إساقها بطرول كوكوش بانيا ميل الله ماشي أدوني سيدنا إلهي ويجيسو مقرد إلهي جل وعلا وحوج عليها قفكم مركو دونيو إلهي بري هيك حتى كور كراتشي نين اسكم مسكينة جماعة للتشكيلي ودنك أستراليا اللي هذا اللي قلت تشكيلي نبقى نوغشي كيني علماء كم ذا جماعة ذا وحا كتشرا نين دلالك الدين تمساجد ككوذا لكن وحباء نيسن دلالك الدين توضع وددك أوه الرأي إلهي ببري تيرر كان مساجدك مركي اللي إلهي بري تير آنو كنتو كانوا لبرق عدد آنو كنتو كان مجرد وباكستان ومكي مسجد مساجد كله هذا مركو تير والبلا برق عدد كنتو كذي إسلام بشاور شوكته أي إلهي منام تص مركاسا نبي صلى الله عليه وسلم هذين ويمدو كريوتيو منك هبل اللي هذين مكي مسجد جوجا استعداد كاسو باهي دين تهلقن كذا إسلامتنا وقف صالح هذا استعداد كاسجا هبل أوجي إحنا وهي ستوقف عاد الله ضمن مركز سيتري وروح أنا ألمو الشيطان هبينك اللي بعد الرياض وكسون هبينك صدعت ننكي صلاة الحاجة تكونها لكن ماشي إلهي وحكايك يعني عالمك مركز أدوك إلهي بريدين الله جل وعلا صحابته مركي كوير هذين نبي الله إلها الشيء يسد ممدنا قفك بأوان ودواقنا مسو نودو يوالفقنا إلهي بجواب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قل لما قيم بالي قل ويفقان شيء كين لي إلهي ودوه هيبوير لذلك السدى لأجل قد ننكي قوردي باعتمد مساجد كالباب كيسي سوي استاكتي ولما كن أو كيلومتر بشاور إيا كراج مركز المساجد كمكي مسجد مركز يتمد بحيتر هبل مساجد كالمجوغة ها والله وير مركي ويمد بي وحي وديبتب ألابتي أي أقصو تلقشي وحرن مركي اللي تريي ننكي تريي وخرجكي يا بوكت مانيجي يا جوريجا وقتك إلى عايورن إيه فكر كيس عالمي مركو إلهي كبري إلهي الباب مؤفر مسو مفرن
annaga hadda waxaan naga dhaadhacsan geedka inaan la gaarin. war walaalayaal niyaddana waasici, fikirkaagana caalami ka dhig. allah jalla wacalaa haddaynu niyadda waasicino oo aan idhaahno allahuma iftax lana alxuduuda waasuduud wa quluuba alcibaad, ilaahayow meel walba albaabada noo fur, addoommada qulubtoodana noo fur, ilahay waxba kuma aha walaalayaal. sidaa la ajligeed waxaa laynaga rabaa inagoo dhan baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra aljazaa. dee hawshaa inaan qabanno diyaar ma u nahay? inaan qasadkeenna bedelno diyaar ma u nahay? hal qiso oo yar ayaan kusoo gabagabeynaya. ma sheegaa mise iska joojiya? qisada hadda ka horna waa sheegay. haaruun wax yar ha iska yara taagnaado, dhib male. qisadaas waxay inoo adkeynaysaa qasadka caawa oo dhan aynu ku adkeynay. zamankii cumar radia allahu canhu ardaah ayaa janaaso la keenay masaajidka nabiga calayhi salaatu wasalaam. janaasadii markii la keenay ayuu cumar wuxuu yidhi war nin walbo wax tamani buu yidhi. ninkaa janaasada iskale magaciisa waxaa la yidhahdaa waa nin saxaabi oo qaali ah, cumeer binu sacad radia allahu canhu ardaah. marka dadkii nin baa wuxuu yidhi anigu waxaan tamaniyayaa masaajidka nebiga muggiis oo fardo oo diinta aan u bixiyo. ninna wuxuu yidhi masaajidka muggiis oo awr ah oo diinta halgankeeda aan u bixiyo. cumar baa markaa hadlay. nin walba markuu tamanigiis wuxuu tamaniyay sheegay. cumar wuxuu yidhi anigu waxaan tamaniyayaa buu yidhi rag aan diintan u shaqaaleeyo, rag aan diintan u kaalmaysto, diintan ka shaqeeyo, u dadaala, rag sida ninkaa cumeer binu sacad, ninkaa janaasada iskale, rag sida ninkaasoo kale ah baan ilaahay ka baryayaa buu yidhi, aan tamaniyaya. hadalkaa ka warrama. rag aan diintan u kaalmaysto oo iigu kaalmeeyo oo diintan ka shaqeeya, macnaha waxaa rag diinta qasad ka dhigtay. allahayna fahamsiiye walaal. waa cumar radia allahu canhu ardaa. ninkaas laba qisuu leeyahay. qisadiisa hore waxyi baa kusoo degay markuu yaraa. qisada inaan galna ma rabno, laakiin qisadiisa weyn markuu weynaaday, cumar markuu nin gobernatoore ka dhigayo ama meel u dirayo, wuxuu ahaa waali markuu sameynayo. ninkaas tadxiyaadkiisa iyo dadaalku diinta u sameeyey iyo diintiisu eegi jiray. ninkaa meesha la yihahdo ximis meel aada iyo aada u ashtaka badan bay ahayd, suuriya ku taalla. amiirka loo geeyana way ka ashtakoon jireen. marka cumar nin buu doonay markaa inuu u diro ximis. raggiisiibuu isha geliyey, basiiradii firaasadiisiibuu aada iyo aada. markii dambe firaasadiisii waxay soo saartay ninka la yihahdo cumeer binu sacad radia allahu canhu ardaa. cumeer buu la hadlay, wuxuu yihi orodoo ximis aad, waali baan kaaga dhigayaa meesha. markaasuu yihi amiirulmu'miniin iga daa, maxaa dhahay dadaalada diinta ee socda dhulkaa la furayo, aniguna shahaadadeeda aan helay, iidaa dhulkaa aan wax ka fure. cumar maya wuxuu yihi dadaalkan waynu wada leenahay, maadaama anigeena amiirulmu'miniin aan ahay, sidaasaan gartay meesha inaad aadid. waayahay, daacadu waa qaali. markuu meeshii tegey muddo sanaduu soo joogay magaalada, wax ashtaka ah kama iman. waxaa la yidhi markuu tegey dadkii wuxuu kulmiyey sulaxada ahaa, dadkii wanaagsanaa ee waddanka magaalada joogay. zakaduna waa xoolo laga qaado dadka aqniyada oo loo celiyo dadka fuqarada ah. nidaam buu u sameeyey. nidaamkiibay markaa zakadii iyagii buu dib ugu celiyey. sanadkaa markaa baytulmaalka wax kharash ah looma soo dirin. ashtaka kama iman meeshii, laakiin ninkii baytulmaalka joogay ayaa cumar wuxuu ku yidhi ninkani sanad buu maqan yahay, wax kharash ahna baytulmaalka uma soo dirin. cumar wuxuu yidhi warqad u qoro, warqadaas waxaad tidhaahdaa markii warqadaasi ku soo gaadho madiino soo gal. magaalada madiina iyo meeshaas sheekh culimmada ka mid oo ka sheekeynaya wuxuu yidhi xims iyo madiina waxay isu jiraan waa 3,000 oo kilomitr. halkaasuu lug ka soo qaada, wuu soo lugay magaalada madiinu soo gal. ilan daabad ma haysto, waxba ma haysto. diinta halgankeeda shaqadii iyadaheeda loo dhiibay markuu qabtay halkaasoo cumar waa garan waayey. markuu yimid mudduu soo socday, bil baa laga yaabaa inuu dariiqa kusoo jiray.
markuu yimid suuradiisii xataa cumar waa garan waaya timihii oo ku baxay markaasuu yidhi markii dambe aad intuu eegay Cumeer baa tahay haa miyaad soo lugaysay buu yidhi haa cumar waa ooy wuxuu yidhi war dadku xumaa dameer yarna miyay ku soo siin waayeen oo safarkaaga aad u kaalmaysatay markaasuu ku yidhi amiirul mu'miniin horta xamanin buu yidhi dadka waxaan ka soo tagay iyagoo salaada subax jamca ku wada oogaya أنا مويدي سنبوير إيقونا إيما قرن أنا مويدي سن صحابته وحيلها يوح استغناء لإرادة إلهي مركو كهلي وحويري للفقراء الذين أحسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف قف كأرم كوذا أنكور قبل ده التجار موذي أغنياء إيقونا وحبيه سن أي وجه الدفر مرسنا يعني عن ضد كان استغناء بالحياة وضد كعنتو ذي ككافتونا الله ينفهمش مركا عمر وحكير محد مقالد إنه كنتو والله وحكير دوال الكتاب راشد يدين بيه وكبوحان بكورة يدين واوتا حرب يدي سيفت يدي عن عدو وكل الدقال لما يندبر كإيشار انتهي لكن عمر واحد الدنيا إذن موضة هذا إذن صهر الله دوا إذن كين لها أنا ماشي مركان تجي نظام كاسان السمي حوله زكالها إيجا دتك فقراءها إن لصيو ماشي جوجي تكيس كين أساسه كل ماض عمر مركان وحوره الله عصباني يصير صنت كله إنه ماشي دبوا نقطة مركان يصير أمير المؤمنين ما دام كيس سجها ولا ماضي أنا يجده عمر مركا وكو قلاده مقالة المدينة تولوين كفوق أيو دقنا عمر غير كيسيبو آده عمر كمهرن نين حارث اللي يرادو كذب الدري وحيرو أرضو فالنكا سهدو حيستنا صوئك على حولها دتك مسلمين تو أمانو هدين نكا سو حيستنا اسكسو النقو هدان وحبه يستنا كون كادرهم انت مرتئو النقطي كون كادرهم أجي ما هو يمدو حورني وحندوني يا بلنا المرتي مالني يا لبي يصدح كل شيء فضل بوير من صحابي مالن بقول شيء مالن لبعض كي جيران كي سحاب وحنا وحباب ما هي دتك سو كسو قاده لا حد يكوير ورن كان عليس بعد غير كان جلسي هذا السفر هذا اللي سفر كاغ وضو هذا عليس روايتك لو حشيغيسا اسغا لفتيسو انو كوير ولا دي عليس كله هنوجو درينه حدي ميل هذا السعتي ماشي هذا السعتي أصي صعو وهذا كلنا ننجيران كي ساب الله هذا وحكوا له ورد الرير كان عليس كوحنا يقصينا يامبا وحي أماه قصو قاتين بعد ذلك الوجو كرامين مركز سكون كي درهم قصو صار عمر وحوير وام حي أمير المؤمنين باكوسو دي وعلبوا يرى أنا وهم بهني حاس كما مركز مقشي markaasay tiraahdo hadaadan u baahnayn qaryadeena dad badan oo masaakiin dadkii agoonta ahaa dadkii araamisha ahaa xaasaskii laga dhintay dadkaas oo dhan baa in la joogay hadaadan adigu u baahnayn waaba u baahanahay iyaga maad u qaybisid sidii buu markaa yeelay xoolii banaanku u booday xaarisnimadii inuu dib ugu soo noqdo markuu tagay amiirul mu'miniin uu weydiiyay ku yiri bal warano wallahi waa ka taalay buu waxba muhayn كونكي درهم بنسيه محو كسميه ما قانون برنامج وبود ورقد بو سوق وحوير مركه ورقد إذا سوق قادو مقالة المدينة سوق عمر مركو يمد سؤاشك واد وكبلابه وحيد حارثو كونكي درهم حاد كسميس مركه سوير صويمات سير محادي ويدين ما إلهي من كقول شيء يشك محاد كسميس قدمتها لآخرتي وير آخرة ذي بانوهر مرسل عمر مركز بيت المال كي وفر إيجا ولا لا البيت المال كي وفر وحير وحلا واحد دوني استقاضوا دتك الدين تنكسر الشقية مركا أنا إيجا وحكوير عارف عمر بن سعد وحكوير يا أمير المؤمنين قريقا وحان وقعي مدبويري كوم بهيدا هيدا صومت غانا ولا لا قمدية إسكادة كوم قمدية هوت الراشين مرة بويرو كوم بدا سيقرقي تالي markay naga dhamaatana ilaahay baa rizq keenay dadka diinta caalamka furay eega guriga maxaa yaala koombaheeda markay naga dhamaato rizq yaa keenaya Umar markaasuu ku yiri waayahay hadaadan raashinka wax ka qaadanayn
haddaba dharka wax ka qaado ma anigu ma baahni buu laakiin xaaskan laba mar uga qaadaya ninka janaazadiisii 3 cisho kadib ayaa masaajidka nabiga la keenay calayhi salaatu wasalaam waa marka Umar leeyahay anigu waxaan tamaniyaa rag aan diintan u shaqaaleeyo sida ninka Umar bin Saad ninka janaazada iskale rag shaqaale diintan aan u shaqaaleeyo wala la qasadkooda ilaahay anagana qasadka Allah yarsiyo si qasadka ilaahay anagana inoogu furo tadxiyaan u baahanaa inaan diinta waqti gelino barakallahu fiikum marka maanta leeyahay ilaahay dartu u baxa wala la waa noloshii adduunyadeennii baa ku dhismaysa aakhiradeennina way ku dhismaysaa marka barakallahu fiikum in meel dheer iyo meel gaaban aan u dhaqaaqno diinta soo diyaar ma nihin